السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا wanaagsan idil ahaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijka haweenkii caafimaadka. Magacaygu waa Sagal Cabdilaahi. Halkan waxaan toddobaadkiiba mar idinku la wadaagaa xogo muhiim ah oo ku falaqeyno caafimaadka haweenka. Sidii ballantu ahayd aan ku sheegnay barnaamijkii kan ka horeeyay, maanta waxaan idin la wadaagayaa habab dabiici ah oo uga hortagi karto caado wareerka. Haddaba inteynaan u gelin hababkaas, marka hore aynu mar kale si fudud u sharaxno caado wareerka. caado wareerku waa xaalad dumar badani ay la kulmaan balse aan inta badan si dhab ah looga hadlin. Waa marka caadadu aanay iman waqtigeeda, mararka qaar ay dib u dhacdo, mararka qaarna ay kasoo hormarto waqtigeeda, ama ay la socdaan xanuuno iyo dhiigbax aan caadi ahayn, taasoo ah fariin uu sheegayo inay ciladi jirto sidii saxda ahaydna ay wax ka bedelan yihiin. caadadu waa nidaam dabiici ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka ugu gaar yeelay. Haddii hormoonada shaqada ku leh caadadu isku dheelitirnaadaan, caadadu way hagaagaysaa, balse mararka qaar inay caadadu khalkhasho waxa ka qayb qaata habnololeedka maalinlaha ah ee haweeneyda, sida walbahaarka, hurdo la'aanta, cunto xumada iyo jimicsi la'aanta. caado wareerku ma aha mar walba cudur, balse waxa saameyn ku yeelanaysa habnololeedka aynu noolnahay. tanina waxay ka dhigan tahay in si dabiici ah loo sixi karo haddii aan wax ka bedelno qaabka aanu noolnahay. Haddaba sideeban uga hortagi karnaa caado wareerka ama u bedeli karnaa habnololeedkeena si aynu ugu badbaadno caado wareerka? Cunto isku dheelitiran ayaa ah tallaabada koowaad ee aad ku bedeli karto habnololeedkaaga, oo kow ka tahay cunista khudaarta cagaaran, midho iyo cunto borotiin leh sida kalluunka, beedka iyo digirta. waxayna ka caawinaysaa jidhkaaga inuu si sax ah u maamulo hormoonada. sidoo kale yareynta sonkorta iyo cuntooyinka warshadaysan waxay door weyn ka qaadataa inay ku hagaagto caadadu waqtigeeda saxda ah oo ay ku timaado bil kasta. waxa iyana muhiim ah cabista biyaha. biyo badan oo aad cabto kugu filani waxay saameyn ku yeelanaysaa shaqada hormoonada inay si dabiici ah u shaqeeyaan, waana lama huraan inaad maalintii 6 ilaa 8 koob oo biyo cabto. dhanka kale, walbahaarku waa sababta ugu weyn ee caado wareerka keenta. marka maskaxdaadu uu culays ka tan badan saaran yahay, jidhkaaguna wuxuu sii deynayaa hormoonada calqaladeeya caadada. taas awgeed waxaa muhiim ah in naftaada aad nasiso, hurdo kugu filanna aad hesho, socod inaad samayso, jimicsi fududna aad samayso. sidoo kale iyana waxaa muhiim ah inaad maskaxdaada dejiso. intaad ka fogaan karto fikirka badanna ka fogow, adigoo talo saaranaya Ilaahay subxaanahu wa tacaala, dikrigaaga iyo tasbiixdaadana ku dadaalaya. sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad la hadasho qof aad ku kalsoon tahay si uu kaaga yaraado walbahaarku, xasiloonina aad ugu dareento. sidoo kale hurdo la'aantu si toos ah ayay u saameysaa. haweeneyda seexata 7 ilaa 9 saacadood habeenkii, jidhkeedu wuxuu helaa nasasho iyo deganaan, waxaana yaraada dhibaatooyinka ku iman lahayd shaqada hormoonada. sidoo kale tani waxay keentaa caado joogto ah iyo in khalkhalka aad ka raysato. jimicsiga fudud sida socodka maalinlaha ama inaad kala bixiso jidhkaagu wuxuu yareeyaa walbahaarka, wuxuuna hagaajiyaa wareegga dhiigga, taasoo kaa caawinaysa joogtaynta caadada. dhinaca kale waxaa jira dhir dabiici ah sida sanjabiisha, qolofalka iyo xabaasuuda, huruuda iyo cambababaygu iyo khamuuntu waxay kaalin ka qaataan yareynta xanuunka iyo kor u qaadida caafimaadka guud. si kastaba ha ahaatee, haddii aad qaadato daawooyin ama aad qabto xanuunada lala noolaado, waa muhiim inaad la tashato dhakhtarkaaga. ugu dambeyntii, inaad qorto ama aad la socoto caadadaada waxay kaa caawinaysaa saxnaanshaha caadada. waxay kaloo kaa caawinaysaa fahamka jidhka iyo ogaanshaha isbedel kasta oo dhaca, goorta ay bilaabmato, intay socoto iyo sida aad dareemayso, si aad u kala garato in khalkhal jiro iyo in kale. waxaan kusoo gabagabeynayaa caado wareerku maaha wax laga xishoodo, waxa uu baahan yahay faham. sida ugu dabiicisan ee aad uga hortagi kartaana waa arrimahan aan kor kusoo sheegnay, oo ay ugu muhiimsan yihiin inaad qaadato cunto saxan, isla markaana hurdo fiican aad seexato. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay, like, share and subscribe si aad ula socoto barnaamijyo cusub oo ku saabsan caafimaadka haweenka. intaan barnaamijka mid lamida ku kulmayno, caafimaadsan.